Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to our YouTube channel Osman Pancher for studying the English language. I'm ready here to teach you the English language for free. Kusoo dhawaada channelkeena Osman Pancher oo aad ka baranaysaan luqadda Englishka waliba si free aniga oo ugu talagalay bulshadeena Soomaaliyeed oo aan isku luqadanahay meel walba ay dunida ka joogaan inaan uga faa'iideeyo channelkan barashada luqadda Englishka. Welcome, soo dhawaada. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe dhaho. Haddii aad horay noola joogtayna like ta inoo saar, commentigana nagu dhiirigeli inshallah. Ardayda u baahan ama bulshada u baahan inay barato luqadda Englishka ku xira channelka adiga oo mahadsan ama idinka oo mahadsan. Marka today waxaan qaadanaynaa lesson 13 cashirkeeni 13 horay waxaan u soo baranay 12 cashar. Channelku English oo kaliya ayuu hadda noqon doonaa inshallah. Waxaana idinkugu dhiirigelinayaa sida wacan aad commentiga uga soo jawaabayseen iyo sida aad WhatsApp-ka igala socotaan. Ardayga cusub ay ku soo biiray waxaan u sheegayaa casharadii hore, casharka lesson 1 ilaa iyo lesson 12 inuu si fiican u soo barto. Cashir waliba oo aad soo baratidna fadlan isku day inaad qoraalkiisa iyo dhawaaqiisa WhatsApp-ka aad ku soo dirtid. Ha isdhihin hal mar wada baro. Tabartaada adiga og. Inta tabartaada qoro ee baro. Mar walba waxaan diyaar u nahay inaan idinka saacidno ama aan idinka saacido barashada luqadda Englishka oo free from basic level to advanced level. Heerka bilowga ilaa iyo heerka ugu sareeya inshallah. Wax waliba oo ogeysiis ahna waxaad kala socon doontaan channelkeena inshallah. Waxaan isku dayi doonaa asbuuc walba 5 cashar ama ilaa iyo 4 cashar inaan ku qaadano oo luqadda Englishka bishii si ay u noqoto 20 cashar inaad qaadatay. Marka 20 cashar oo aad waqti gelisay casharada lagu soo gudbiyo channelkan aad xifdisay kaga soo jawaabtay WhatsApp-ka lagu saxay wax badan ay faa'iido ku tahay inta aad waqtigaaga ku lumi lahayd meel maala yacni marka ku soo dhawaada channelkeena Osman Pancher and I am Osman Abdul Qadir Pancher. waxaan diyaar u ahay inaan luqadda idinka saacido. Marka cashirkeeni haddaan u gudo galno maanta, today we are going to study days in the week. Maalmaha asbuuca. Days in the week. Maalmaha asbuuca. Kelmadda days haddii aan sharaxno, maanta waxaan baranaynaa maalmaha asbuuca oo 7 maalmood. 7daas maalmood 2 maalin ka mid ah dunida waxay u taqaanaa inay tahay weekend ama dhamaadka asbuuca. 5 maalmood oo kaleentana waxbarashada, shaqooyinka si caadi ayaa loo tagaa. Marka okay, maanta waxaan qaadanaynaa days in the week. Days maxay tahay? Day. Horta days esta aan ka reebno. Day kaliya aan sharaxno. Day markaad ku dhawaaqaysid waxa waaye waa D A Y. Markaad ku dhawaaqaysid waxaa leedahay day. Day markaad ku dhawaaqaysid waxaa leedahay day. Okay. Day markaad dhehaysid diida qaab dha oo khafiif aad ku dhawaaqay. Day oo dha toos ma dhehaysid. Day oo da ahna ma dhehaysid waxaa leedahay day ayaa leedahay. Day dan xanaga ku dhajina carabka day ayaa leedahay.
marka days in the week. Day marka day waa maalin. Day kaligeed markay tahay waa maalin, waa day day. marka esta aan ku darna marka days aan dhahno. Days maxay leedahay waa maalmo. Days waa maalmo. esta maxay ka dhigtay jamac ama wadar, way badis. hal maalin waa day. maalmo markii la dhahayna days. intaas waa isla fahmay. days waa isla fahmnay. mar haddaan days isla fahmnay, waxaa kale intoo jirta ta iyo o. haddii t iyo o haddaan ka hormarsiino dayda maxay noqonay today. Today maanta. Today waa maanta. Okay, today waa maanta. marka meeshaas maxaa ka fahamtay? Today maanta, day maalin, days maalmo. intaas waa isla fahmnay. in ku jira waay. hadda ha isku mashquulin prepositionada. in the week asbuuci. kelmadda marka week markay tahay W-E-E-K markay tahay, W-E-E-K markay tahay waa week, waa asbuuc. marka waxaa kaloo jirta W-E-A-K oo ayadana lagu dhawaaqayo week. dhawaaqa isku mid ay ka yihiin, laakiin qoraalka ayay ku kala duwan yihiin. maxay tahay marka week iyo week? tan week oo asbuuca ah waxa waaye waa W-E-E-K. week taas kaleentana waa tabardaro, waa W-E-A-K. week labadooda waa isku dhawaaq, laakiin waa kala qoraal. week oo double-E-da ah waa asbuuc. week oo E-da oo shaqalada ku jirana waa tabardaro. My body is weak. My body, jirkaygu is weak. wuu tabardaran yahay. Today maanta. Today maanta. My body, jirkaygu is weak. waa tabardaran yahay. marka maxaad fahamtay? Days iyo day iyo today waad fahamtay. maxaa kale intoo fahamtay? week oo asbuuc ah marna tabardara ah ay isku dhawaaq yihiin, haddana qoraalku uu kala duwan yahay. days in the week aan markaan gudagelina. ciwaankeena maanta waa days in the week, maalmaha asbuuca. okay, waa isla fahmnay intaas. maalmaha asbuuca waa 7 maalmood. anaga markaan nahnay Soomaali ahaan markaan fiirisid, wuxuu inooga bilowdaa days of the week-ga sabti. sabtida ayaa cayaalkeena dugsiga aadaan, iskuulaadka aadaan. laakiin halka dunida inteeda kale ama wadamada qaar reer galbeedku oo sabtida iyo axadda ay u tahay fasax, halka anaga khamiista iyo jimcada ay fasax inoo tahay. marka sidaa la ajligeed waxay ka bilaabaan kalendaradoodii iyo wax waliba ay macnaha kusoo qaadanayaan maalmaha waxay ka bilaabaan isniin. marka anaga marka qaabkaasaan u baranaynaa oo internationalka ah oo caalamiga ah. kadib marka adiga sabtidii anaga wax baan baranaa, iskuulan aadnaa, you can say. okay, marka waxaan ka bilaabaynaa marka sida kalendarka caadiga Monday. isniin aan ka bilaabaynaa marka. isbuuca bilowgiisa internationally aan baranaynaa waxaan leenahay Monday. Monday waa isniin. Monday waa isniin. man hadhihin mon, hadhihin please. waa inaad dhahdaa man. okay, man, M-O-N-Y, laakiin ahaan aad ugu dhawaaqay waxaa leedahay man. okay, Monday, 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 day. fahmaysaa? kulli day ala jirto. marka dayda mar walba saasaad ugu dhawaaqay. day saad marka hore kugu soo sharxay. Monday waa isniin. Monday, Monday waa isniin. okay, waa M-O-N-D-A-Y. Monday waa isniin. markan spellingka waa fahamtay, waayo erayo badan oo la spellinayo aan hore usoo qaadanay. okay,
Monday waa isniin. Ereyga maalinta ku xigta waa Tuesday. Tuesday waa T-U-E-S. Tuesday. kulli day ala jirta marka. Tuesday. Okay. Tuesday waa T-U-E-S-D-A-Y. Tuesday waxaa soo gelinaysaa dhawaaqa wa oo kala soo gelinaya oo khafiif ah. Tuesday. macnaha waadan adaan kugu fahamsiinayaa. Tuesday aa leedahay. wa oo khafiifa soo gelina marka soo dhawaaqaaga u saxmo. Tuesday waa maalinta salaasada ama talaadada saad u taqaanid. Monday waa isniin. Tuesday waa salaaso ama talaado. Wednesday aan qaadana. Wednesday diida hore laguma dhawaaqaayo. Wednesday alena. Okay. Wednesday waa W-E-D N-E-S-D-A-Y. Wednesday waa arbaco. Wednesday bas la fahmna mulena. Wednesday waa arbaco. Monday waa isniin. Tuesday waa salaaso ama talaado. Wednesday waa arbaco. Okay. Wednesday waa arbaco. Thursday. Th waxaad ugu dhawaaqaysaa tha oo kale. Th laba qaaba loogu dhawaaqaa. marna waxaa loogu dhawaaqaa da. marna waxaa loogu dhawaaqaa tha. marka tusaale ahaan qofka markaad dhehaysid waa mahadsan tahay oo kale maxaan leedahay thank you. Th ay ka bilaabanaya. Thank you. ma dhehaysid thank you ma dhehaysid. Th ay ka bilaabanaya. Th ta marka tha aa loogu dhawaaqaa. marna da marna tha. waa kala baranaynaa qaababka loo qoraa jirta marka. Vinotics hadla laakiin hadda ha isku mashquulin laakiin faham waxaan kuu sheegay please. Thank you mahadsanid oo kale markaa leedahay. Thank you hadhihin thank you hadhihin. Okay waa isla fahamna taas. marka markaan aan ku guda jirno marka Thursday. arta carabka gadaala u naqe si toos ma ugu dhawaaqay. Thursday ma dhees. Thursday. Thu ah ku xigto thuris ma dhees. ahaana loogu dhawaaqa tha ugu dhawaaqay. Thursday. arta waa ka fara baxsanay. qof ka fara baxsanay camal iska dhigay. Thursday waa khamiista. Monday waa isniin. Tuesday waa salaaso. Wednesday waa arbaco. Thursday waa khamiis. Friday waa jimco. jimcatul muslimiin waa maalinta ay anaga ciidda inoo tahay. Friday. Okay. Friday waa jimcada ay muslimiinta ciidda ay u tahay. alxamdulillah. Friday waa F-R-I-D-A-Y. Friday waa jimco. Okay. Friday waa jimco. Saturday waa sabti. waa sabtida dadka reer galbeedku ay u tahay ama wadamada qaar ay u tahay maalinta fasaxa. Okay.
Saturday, 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 Saturday. Artam ku dhawaaqays. Saturday, Saturday. British ka saas do. American ka muxuu dhahaa Saturday, Saturday. Tida anaga British ka T ugu dhawaaqayo, American ka D ahaan ugu dhawaaqa D ahaan ugu dhawaaqa D ahaan oo wuxuu leeyahay Saturday. D waa laakiin dha oo qafiif camal loogu dhawaaqa. Saturday, day oo kale saan hore ugu soo sharxay. Saturday, Saturday, Saturday oo dhahaa Sabti. Saturday, Sabti ayuu dhahaa Mareykanka. Sidaas ayuu ugu dhawaaqa. British kana Saturday, Saturday, Saturday. Marka Saturday ma dhees. Saturday na ma dhees. Saturday ama Saturday, Saturday ama Saturday. Waa S Saturday. Waa S A T U R D A Y. Saturday. Saturday. Saturday waa Sabti. Okay. Saturday waa Sabti. Waa isla fahmay. Waxaan qaadanaynaa Sunday. 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 Sunday ma dhees. Sunday. Sunday. Waa S U N D A Y. Sunday. Sun kaligeed markay tahay hore waxaa ugu soo baratay qorax SUN. Qoraxad ku soo baratay day. Okay. Sunday waa axad. Marka intaas waay. Marka aad qaab kooban ay kalandarada ugu qoran yihiin, eray kasta ama maalin kasta saddexda xaraf ugu horeeya laga soo qaataa markii la soo gaabinayo. Okay. Monday oo kale MON laga soo qaataa. Marka hal mar aan ku celino. Monday, Isniin, Tuesday, Salaasa ama Talaado, Wednesday, Arbaco, Thursday, Khamis, Friday, Jimco, Saturday, Sabti, Sunday, Ahad. Waa isla fahmnaan u maleynaa. Marka sidaana ugu dhawaaqay mar walba. Markii la soo gaabinaan saddexda xaraf ugu horeysa laga soo gaabsadaa maalin waliba. Marka cashirkeeni 13 halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Waa anigoo ah Teacher Ismaa Cabduqaadir Banjar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.